waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool klibiyo ama warbaahinta qaybo ka mid ah iyo mas'uuliyiin hadlaysa oo ciidanka booliiska ayaa meela xirtay ama wax sameeyey ama shaqo hor istaagay maanta ilaa xalay aan ku arkayay baraha bulshada iyo meelahaas aan ku arkayay waxaan marka rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa ciidan u soo dhabaradaygay 2 sano oo doorashadaana jirtay waajibaadna ka qaatay doorashooyinkii dalka ka dhacay ee dowlad goboleedyada xarunta xamar iyo meel walba ka dhacay xildhibaanadii la dhaarinayay xildhibaanadii la soo daadgureynayay xildhibaanadii la isu keenayay waxaa ciidan ka shaqeynay ciidanka booliiska Soomaaliyeed buu ahaa iska ayaan daro dad mas'uuliyiin intay meel soo istaagaan inay yiraahdaan booliiskii baa meel xirtay ama meel sameeyay booliiska Soomaaliyeed isagoo waajibaadkiisa gudanaya oo qarannimada ummadda tan meeshii ay ku gaari lahayd ka shaqeynaya in muxuu ahaa waxyaabo aan raalli laga ahayn oo muxuu ahaa aan sumcadooda iyo sumcadda shaqadooda toona labada wax dilaya inaan marka ka jawaabno ayaan u diyaarnahay ciidanka shalay galab oo aanu joognay muxuu ahaa teendhada anfisioni oo aanu u diyaar garoobeynay hawsha doorashada culus ee maanta dhacday ee sanadka lagu dooranayay howlaha doorashaduna howlo sahlan maaha mas'uuliyadda booliiska saaran waxa weeye maalin ka hor inay meesha tagaan inay baaraan inay eeyageeyaan inay liisaska dadka musharaxiinta iyo ergada imaanaysa iyo muxuu ahaa senatorska imaanaya iyo meediyaha dadka ka imaanaya iyo dadka sharafta badan ee lasoo casumay inay u diyaar garoobaan liisaskooda haayaan basas ku soo qaadaan iyagoo ay leeyihiin ka soo qaadaan akademiyada ka soo qaadaan afisiyooni amnigooda ilaaliyaan waxaasaa ku shaqo annagoo ku mashquulsan shalay mar waa noo yimaadeen annagoo ku shaqeyna weliba aragtida guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee muxuu ahaa aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin shalay shaqadaanu haynay waxay ahayd aqalka sare aanu ku mashquulsaneen aqal hoose maba aanaan gaarin hawshiisii kuma aanaan jirin iyada beraanu u diyaar garoobeynaa marka inaanu meesha amnigeeda ilaalino in sidii ayaantii hore hobiyaa lagu soo tuuray la oran inaan la oran meesha wax la dhigay hawl adagana ku hayna shalayto mar waa ii yimaadeen guddoomiyaha oo muxuu ahaa aqalka hoose markaa waxaan u sheegay inaanu hadda ku mashquulsannahay muxuu ahaa hawsha maanta sanadka la dooranayo biraan ku mashquulsannahay aanuna u soo jeensan doono iyagana maalintooda albaab laga xirtay iyo meel laga eriyey waajibna naguma aha aqoonteedana ma dadka muxuu ahaa aqoon yarina nalakuma tuhmaayo waayo aragnimo nalakuma tuhmaayo intani in sahlan maaha in yar maaha waa inaanu muddo badan ka soo shaqeynaynay waxaanu islahayn intaa ka badan baa booliiska sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo waxqabadkiisii waxaa laga yaabaa maanta tan dhammaatay ee hadda noo dhammaatay oo galab maanta lagu soo kala tegay oo doorashada ay dhammaatay iyagu xalay oo dhan iyo maanta oo dhan cidda taagnayd basaska guraysay waraaqaha saxaysay amniga ilaalinaysay iyagay ahaayeen waxaan isleeyahay ma mudna in muxuu ahaa siyaasada isdiidan iyo niman dana leh iyo mas-uuliyiin saar ah inay sidaa u hadlaan waa iska ayaan daro taasay ahayd midda labaad aan rabaa inaan waadixiyo oo la sheegay waxaa weeye villa Hargeysa la xirtay dadkii baa laga eriyey dadkii baa loo diiday villa Hargeysa booliisba ma ilaaliyo ciidamo kala ilaaliya aniga haddaan galaa aniga fasax la'aanba ma geli karo maantana shaqo kama socon guddoomiyaha kumeel gaarka aqalka hoose shalay nala joogay wuxuu yiri meeshaas amni maaha waa ka soo guurnay teendhadaanu shaqadeena ku qabsanaynaa halkaanaanu u soo guurnay marka saaka cid meesha joogtay oo anigu aan oognahay malaha sideedana ciidamo kalaaba ilaaliya annagu markii fadhi jiro kal fadhi uu jiro ayaanu waxaanu gaarnaa baarnaa mina baarayaal geynaa
ciidan booliis hore ilaa 30 geynaa oo amniga xildhibaanada intay meesha ku jiraan ilaaliya markay ka soo baxaanna waa ka soo baxnaa ciidan booliis oo meel xirtay ama joogay ama maanta shaqaba ku lehna ma jirto in dadka marka la maran habaabiyo oo muxuu ahaa waxaan jirin loo sheego oo la yiraaho hebel baa halka xirtay taliyaha halka istaagay taliyuhu ma aha askari booliis oo stop taagan ama mataqaana bar control taagan maaha waa mas-uul qaran howlo ka waaweyn oo dalkan amnigiisa ah iyo doorashadani siday ku dhammaan lahayd baan ku mashquulsanahay baan ku aad ugu mashquulsanayn waxaan uga mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed siday noola shaqeeyeen oo maanta ay noogu dhamaatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin berrina waxaan rajaynaynaa sidaan oo kale in ilaahay noogu dhameeyo oo waqtigiisa aanu iswareysano bal inta caawa waxaanu u soo jeednaa inaanu teendhada habeenbarkii la tago ee la geeyo la baaro boliis joogo la kontaroolo waraaqaha liiska imaanaya dadka imaanaya anaga waxaa noo soo gudbaya gudoomiyaha ku-meel gaarka ah iyo xogeeyaha guuda aqalka sare iyo aqalka hoose sidii maanta la yeelayaa ummadda Soomaaliyeed hays dejiso wararka meediyaha muxuu ahaa aan fiicnayn oo dalka iyo dadka iyo diintaba u fiicnayn hal iska daayo bil ramadaana lagu jiraa 10kii u dambeysay baa lagu jiraa dalkeena iyo dadkeena aanu turno mas'uuliyadda aanu qaadanay oo aanu haynana aanu ka run sheegno dana yaryar oo siyaasadooda isdiidan inaanu intaas oo ceeba ama dunuuba ama wax dembi naga raacayaan samayno ma rabno waxaan ilaahay u rajaynayaa in berritona siday maanta noogu dhamaatay ay noogu dhamaato iyadoo wax dhibaato aan jirin kadibna aanu u gudano cidii dambe oo doorashada galaysa shacabka Soomaaliyeed waa mahad celinayaa ciidamada booliiska hawsha ay qabteen aad iyo aad aan uga mahad celinayaa aniga mas'uul ka ah marka sidaas aan rabay inaan la socodsiyo ummadda Soomaaliyeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh